Ninkani wuxuu gudaha u soo galay goob lagu xanaaneeyo libaaxyada oo loo soo daawasho tago. Waa xarun libaaxyada ay ku jiraan oo lagu xanaaneeyo halkaana dadku u yimaadaan si u daawadaan libaaxyada. Hada waa libaaxii aad garanaysay ee aarka ahaa ee khatarta badnaa ayuu ugu soo dhacay gudaha, balse maxaa ka qabsaday aynu aragno. Ninkan oo ahaa ruux markaasi maskaxdiisu aanay fadhin ayaa ka soo dulbooday gidaarkii libaaxyadu ay gudaha ugu jireen. Ninkani oo ahaa ruux maskaxdiisu aanay fadhin oo sakhradeysnaa ayaa gudaha ugu soo galay libaaxa isagoo ka soo dulbooday gidaarkii libaaxa ku xeernaa gudahana ugu soo dhaadhacay libaaxa. Dadka bannaanka ka daawanaya ayaa yaab iyo shoog la anfariiray kadib markuu si toos ah ugu yimid libaaxii, isagii libaaxii inay noqotay face to face inay kala wax qaadaan. Halka libaaxa ayaa la sheegaa inuu u dhigmo ilaa 7 qof oo ah dadka kuwa ugu awoodda badan ama ugu murqaha waaweyn. Qaniinyada libaaxana waxaa la sheegaa halka mar ee uu wax qaniino inay ku filan tahay qof bini'aadan ah inuu dilo ama uu qofku dhaawac u geysto. Qaniinyada dhaawac ay u geysato qofku inuu u dhinto. Balse ninkan oo ah nin sakhraysan ayaa gudaha ugu soo galay libaaxa meeshii uu ku jiray si uu dadka u tusiyo inuu libaaxu waxba ahayn isla markaana uu kala eri karo. Waxaa isla markiiba ku soo degdegay dadkii meesha ilaalinayay ama mas'uuliyiintii qaabilsanaa goobtan xayawaanaadka lagu xanaaneeyo, isla markaana libaaxii u isticmaalay hubka lagu kala eriyo libaaxa. Ninkiina si badqab ah uga soo bixiyay meeshii uu ku jiray ee halista badneed.